فايسة عبد عثمان waxay ku magac dheer tahay Furqaan oo hal xidigle ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyadoo shaqada qaran ku jirta ay shil gashay bishii 9 sanadii 2016 waxayna ka jabtay laf dhabarta magacaygu waa Faaisa Cabdi Cusmaan dhacdadan waxay igu dhacday September 16 ama bishii 9 2016 waxay igu la dhacday gobolka Shabeellada Hoose khaasatan Baladogle waxaan ka jabay lafta dhabarka waxaan ila gadoomay baabuur bilad proof loo yaqaan gaaridan oo qarax karin waxaan ka qabanay waxaan siinay mushaaraadka ciidamada commandoska ee ku sugan Baladogle markii aan lacagta soo bixiyay kabacdi aan soo noqday aan la kulmay shirkaan runtii tiin badan aheen adiga ilaa iyo 20 ciidan ah amal aheen si dhaawaceeda loo daaweeyo waxa loo qaaday dalka Turkiga balse wax waa looga qaban waayay halkaasi dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen in dawadeeda laga heli karo oo kaliya dalal kooban oo ka mid yahay dalka Germany horeyntii dabiibkaygu ugu horeeyay magaalada Muqdisho waxa la keenay isbitaal Xalane kabacdi waa laga soo qaaday habeenkii la keenay Xalane subax Digfeer la keenay Digfeer waxaan ku jiraa muddadan 9 maalmood markii wadanka gudihiisa wax la iga qaban waayay waxa la qaaday dalka Turkiga waxaana kaalin fiican ka qaatay amba bixiyga caafimaad oo waqti badan u bixiyay amaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhamaan taliska ciidanka oo ugu horeeya taliya amaanduulaha ciidanka Cali Baashi waxa kaloo garab igu siiyay asagana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Yuusuf Madaali dan waxa la qaaday Turkiga waxa markii la qaaday waa intii Turkiga wax ka qaban karaan way ka qabteen intii kale awoodi kari waayeen waxay dhaheen dalka Jarmalka wax laga qaban karaa runtii markii oo la yiraahdo dalka Jarmalka wax laga qaban karaa waxaan iska soo darbiday maadaama aanan awoodi karin inaan dalka Jarmalka tago in ugu soo noqdo sidaas la adligeed dalkii dib ugu soo noqday alxamdulillah hadana xaaladeeda sidaanay ku sugan tahay waa ijeedaan u jeedaan kursiga saawheliya isaga Sacuudiya dhaqaale dalka Jarmalka ay ku tagto ma haysato oo ma awoodo dalka ayaana dib loogu soo celiyay Faa'iiso runtii waxay ii sheegeen dalka Germany maadaama ay dhaheen dalka Germany aniga Faa'iiso ahaan marka iska hadlo ما أودي كره إن مركز أنا أما باسبورك في سب كله فتوى أما ذلك الشرمال كان تجو وحضرف بدي إن ذلك إماده مرحلة دي أنا على وذاقه أكون ولا هي بالشوين تصوماليات إذا ما مدحني الدولة ده سي مركز أيجينا وحيلة تعالان waxaa intaas ka daran muddada caafimaadkeeda wax looga qaban karo ayaa waxa uu yahay mid aad u kooban qaadiirta Turkiga waxay ii sheegeen maadaama ay dhaheen neerfahaaga waxa haysataa muddo aan inta u badnayn runtii dhaqaatiirtu waxay sheegayaan nawaarun waxa haatan aan arkay labadooda lugood lugta midig waxa moodaa hada in xaaladeeda ka sii darayso isbedel fara badan ay ku soo korodhay runtii dhaqaatiirta jaamacadda idin fursada ay neerfaaga haystaan way yar yihiin haatan ama ficladii ay wixii ii sheegeen ficlo kamid aan arkin gabdhaha ku jira ciidamada Soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa waxa ay yihiin kuwa aad u kooban maanta xilliga aan hadda aan ku jirnay ma jirin gabar dhalinyaro ah oo sida aniga aan maanta meel uga muuqdo kaleeto ka muuqata way jiraan gabdho badan oo saraakiil ah booliska nabadgelyada militariga way jiraan laakiin aniga meesha aniga aan waxda aan joogay ma jirin gabar kala xataa ay kala shaqeyso runtii hami badan lahaa runtii mustaqbalkaygana aad buu u wanaagsanaa waxaan ku aaminayay ma sha Allah inaan title sare aan ka gaaro ciidanka qalabka laakiin qadar Allah ay ku dhacday amarka iyo hamigeygana amarka weyn waxaana waa amar ilaahay inacayb iimu inqaabin jacayl hawiyaan marka insha Allah taala dambi dhaaf ay waana ka bixi doonaa insha Allah nasiib daro Faa'iiso waxa ay sheegtay maanta iyada oo caafimaad qabta inay jeclaan lahayd ka qayb qaadashada dabaaldega sanad guurada ciidanka xoogga dalka
maadaama maanta ay ku beegan tahay 12 Abriil waxayna sheegtay inaysan ka maqnaan karin oo ay tagi doonto oo ay ka qayb gali doonto munaasabadan. waxaan jeclaa jiro mar walba aniga 2 Abriil markii la gaaro munaasabadaas marnaba inaan ka baaqan oo macnaheedu aan isku taxaluuji jiray xataa inaan kaalin ka qaato laakiin kaalinta ugu weyn ee aan rabo inaan ka qaato waxay ahayd sanadkan oo jeclaa inaan waliba aan kaalin muuqata ka qaato sida aniga inay ahaanteed ay ahayd laakiin may dhacin saaseedana waxaan diyaar waa xataa inaan ka sii qayb galo aniga saana oo munaasabadaas aan ka maqnaanin karin xataa niyada xataa isiinay oo waxaan ka xushsan inaan ka maqnaado waana ka qayb gala insha Allah ta'ala. madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Xasan Cali Khayre ay ugu baaqday inay wax ka qabtaan xaaladda caafimaad. Haraba inaan halkan aan baaq ugu dirsado dhamaan madaxda dawladda ugu sareeyo madaxweynaha federaalka Soomaaliya Madaxweyne Farmaajo wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre dhamaan golaha baarlamaanka. Faa'isa Cabdi Cusmaan oo dhawaan la kulantay wasiirka gaashaandhigga cusub ee Soomaaliya Cabdirashiid Cabdilaahi Maxamed waxa uu ballan qaaday in dalka Germany uu geyn doono si halkaas loogu soo dabiibo.